Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa magaalada Cabudwaaq kulan kula qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada. Kulanka oo ka dhacay xarunta agoonta ee Taakulo ayna goobjoog ka ahaayeen madaxweyne ku-xigeenka Galmudug, wasiiro, xildhibaano iyo mas'uuliyiinta degmada ayuu Ra'iisul Wasaare Khayre bulshada ku hordhigay qorshaha dowladda ee taabagelinta hanaanka dib u heshiisiinta iyo doorashooyinka si loo dhiso Galmudug dhammaystiran oo hormuud u noqota horumarka deegaanada iyo guud ahaan dalka. Ra'iisul Wasaaraha ayaa kulanka ka sheegay in dowladdu ay doonayso in adeegyada bulshada la daadajiyo si loogu guuleystana ay muhiim tahay in la xoojiyo dowlad goboleedyada. Sidaa daraadeedna dowladda federaalka ay ka go'an tahay mudnaan gaar ahna ay siinayso dhammaystirka hay'adaha dowlad goboleedyada. dalka Soomaaliyeed oo dhan uu isku xirxiran yahay dowladnimadana way hana qaaday laakiin si dowladnimada loo daadajiyo waa in dowlad goboleedyada la xoojiyo. dowlad goboleedkuna ma ahan magaalo madaxda dowlad goboleedka, waa degmooyinka, waa tuulooyinka. waa in dadka Soomaaliyeed la dareensiiyaa dowladnimo, waa in annagana lala xisaabtamaa madaxda dowlad goboleedka, lala xisaabtamaa madaxda degmooyinka, lala xisaabtamaa madaxda tuulooyinka, lala xisaabtamaa. isla xisaabtanka dhabta ah waxa uu yahay in shacabka Soomaaliyeed degmo, magaalo madax iyo tuulo, dibad iyo gudo ay la xisaabtami karaan madaxdooda. waxa uu ka codsaday Ra'iisul Wasaare Khayre bulshada ku nool magaalada Cabudwaaq inay doorka kaga aadan ka qaataan taabagelinta doorashooyinka Galmudug iyo isku duubnida bulshada si loo helo Galmudug nabada oo wada jirta lehna maamul loo dhan yahay. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo deegaanada Galmudug u jooga socdaal shaqo qorshihiisu yahay in Galmudug ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo horseeda dhismaha dowlad goboleedka Galmudug oo loo dhan yahay. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Cabudwaaq.